dukaankan oo lagu iibin doono dahabka noocyadiisa kala duwan oo jumlada ayaa waxaa xadhigga ka jaray wasiiru dawlihii hore arrimaha dibadda iyo sidoo kale maamulka dukaankaasi dahablaha Simoodi oo ah dukaankii ugu horreeyey ee noociisa oo kale laga furo geeska Afrika ayaa ah dukaan lagu iibin doono dahabka noocyadiisa kala duwan oo jumlada. dukaankan Simoodi ee iibinta dahabka jumlada waxa uu dhinaca bari ka xiga dhismaha weyne Telesom ee suuqa bartankiisa waxaanu eegayaa dhinaca waqooyi. munaasabadii furitaanka dukaanka weyn ee iibinta dahabka jumlada ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Simoodi Group Jamaal Xuseen Xirsi waxaanu yidhi waxaan halkan markaa aan fariin uga gudbinayaa macaamiisheeda sharafta leh ee wadamada jaarka ah Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Somaliland oo ka furnay wholesale noociisu yahay mid casri ah oo geeska Afrikaan hore looga furin. waxaanu dhisaynada uga keenay 10 dal oo kala duwan. dhisaynadaasi oo isugu jira nashqadihii u dambeeyay dhamaantood oo casri ah kuwaasi oo ay kala kulmi doonaan dahablaha jumladlaha ee Simoodi adeegyo hufan iyo qiimo raali gelin doono macquul ah. waxaanu macaamiisha sharafta leh mar labaad aan ugu hambalyeynaa in ay ka heli doonaan adeeg kasta oo ay u baahan yihiin oo aanu ka haqabtiri doono. waxay u baahan yihiin dhammaan cadad kasta iyo tiro kasta oo ay u baahdaan ay markaa naga heli karaan. iyagana halkaasi waxaa fursad uga bannaan inay ka maarmi doonaan waqtiyadii badnaa ee kaga lumi jiray ay sugi jireen dahabka oo halkaasi ay ka heli doonaan maxay dahabkii ugu diyaar ah. waxa kale oo fursadan maanta furitaanka dahablaha jumladaha ee Simoodi aan uga faa'iideysanayaa in qaybtii Dubai oo ku socotay baryahanba dib u habeyn in sida u dhaqsiyaha badan leh insha Allah bacda Ramadaan aanu iyadana xariga ka furi doono hadii Ilaahay yiraahdo. anaguna halku dhagayga waxa weeyaan hadaan nahay Simoodi wholesaler halku dhagayga waxa weeyaan hadda iibso hadda iib. Baytiin halkaas waxa ka hadlay wasiiru dawlihii hore arrimaha dibadda Boqor Mixille. wholesalerkii ugu weynaa ee dahabka ahaa ee laga furo Afrika weey halkan ee Simoodi. waxa weeyaan waxa taas waa cadeynaysaa yani Afrika oo dhan waa wholesalerkii ugu weynaa ee kaliya ay laga furo. Somaliland ma hina waa for whole Africa. waxaana loo furay in wadanada bariga iyo bartamaha iyo inta af Soomaaliya ku aadsiba halkan ka dahab ka qaato isagoo jumlada halkan la keenay isagoo jumlada ka qaato halkaad India u tagi lahayd Pakistan u tagi lahayd aan u tagi lahayd wadanada dibadda ilaa 10 wadan oo dibadda ee dahabkooda halkan laga helayaa hadii Ilaahay dhaho. waxay noogu can markaa taas noo suurta gashay in amniga Somaliland yaa jaariska keenay. waxay jaariska keenay waxa weyn Somaliland amniga yaala meel kale oo lagu aamini karo dahab inta la eego heed soolero dibadda laga keeno oo wadanada Afrika ku yaali ma jirto walaa Kenya jiri walaa Ethiopia jiri walaa wadan kale jiri laakiin waa meesha qudhahay lagu aamino weey. marka taasina waxa soo saaray wadankeenu ma aaminada uu yahay ganacsiga sida loogu aamini karo sida wax walba looga dhigan karo ayaa jaaris u tahay. inagana opportunity way noo tooday wadankii halka aag dad baa oranaya Somaliland lama ictiraaf maxaa ictiraaf ka rabnaa sawta soo inaga iska ictiraafsanba wala iska ictiraafsan yihiin waayo mar hadii wixii Afrika lagu aamino dhulka kale halkan laga furayno waa jaanis meeshana Allah barakeeyo. Cable TV Hargeysa.